soddon sano ka hor halkan ayaa Somaliland lagaga dhawaaqay. Waa magaalada Burco oo xarun u ah gobolka Togdheer. La soo noqoshadii xorriyadda kadib, waxaa Burco ka bilaabmay horumar iyo koboc baaxad leh. Waxaa marba marka ka dambeysay kordhayay bulshada ku dhaqan magaalada. Si xawli ah ayay Burco u fidaysay iyadoo ka kordhaysay dhinac kasta. korriimaha degdega ah iyo kobaca bulshada ee isa soo tarayay marba marka ka dambaysa waxa barbar socda korarka baahiyaha bulshada. Caafimaadka oo ah kan ugu muhiimsan waxaa Burco ku yaalay cisbitaalka guud ee dawladda oo ah ka ay badi bulshadu adeegsanaysay. magaaladu aad u fiday waxa uu noqday mid ka fog xaafadaha cusub iyo degmooyinka magaalada Burco. dhibaatana haysatay dhakhtarka weyn oo kala qaban jiray tigbaanu raaci jiray dhibaata weyn ugu haysatay. dawladda Somaliland oo dareensanayd kobaca iyo korarka magaalada Burco iyo baahida caafimaad ee halkan taalla waxaa qorshaha ugu jiray xukuumadda madaxweyne Biixi tayeynta iyo gaarsiinta adeegyada caafimaadka magaalada Burco si Burco loogu helo cisbitaal labaad oo ay magaaladu yeelato. dawladdu iyada oo la kaashanaysa saaxiibadeeda Imaaraadka waxa ay Burco ka hirgelisay cisbitaal labaad oo casri ah. halkan goobtan waxa weeye cisbitaalka Khalifa Hospital Burco oo u adeega dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer iyo magaalada Burco. dhismaha cisbitaalka kadib, dawladdu waxay ku qalabaysay cisbitaalka agabkii caafimaad oo dhammaystiran. waxa ay ka hawlgelisay dhakhaatiirtii iyo howlwadeennadii uu u baahnaa, waxayna u dhammaystirtay adeegyadiisii caafimaad. cisbitaalkan waxaa lagu soo kordhiyey waxyaalihii marka laga yimaado dhismihiisa waxyaalihii kale ee uu u baahnaa. hadda Burco oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Somaliland waxa ay leedahay cisbitaal labaad oo ka mid ah kuwa ugu tayada badan dalka, isla markaana ay ka howlgalaan dhakhaatiir ajaanib ah ayna u dhammaystiran yihiin qalabkii iyo agabkii caafimaad ee gobolka u baahnaa. وانا سافر مهدي القيساك جوكتي الله يوسع